sanadihii ugu dambeysay waxa aroos walba oo dhaca ku baxa intaasoo qarash runtii gabadhu waxay rabtaa dahabkii arooska in loo dhigo in maaragtay meherkii loo dhigo in dadkoodii lacagtii la siiyo arooskii ugu weynaa caalamka maxay tahay xafladda aroos taasi oo la iskugu keenay dadkii ugu taajirsan caalamka waxaad isweydiinaysaa waa imise lacagta ku baxday arooskan diyaarintiisa xafladda cuntada iyo waxaas waxaa ku baxday $120 milyan guurka part 3 kii koowaad iyo kii labaad ka soo daawo page-kayga kan waa mid ka hadlayo guurka qarashkiisu yar yahay oo waliba aad ku dhigato kadibna aad naxariis iyo raxmad wanaagsan aad ka hesho ama ay dhibaato kugu noqotaba haddaba haddii ay jirto guur waxaa jirta in culimada ay ka hadlaan guuryada noocyadaas oo kala ah culimada maxay ka leeyihiin have a simple wedding. The most barakah, the most blessings are in those weddings that have the least amount of money used and cost. Have a simple wedding. Have a nikah in the masjid and guess what? Distribute some plates of sweets and that's it. MashaAllah. That was your walima, small one, where we just gave sweet meats to everyone. It's not wrong. haddaba haddii aad adiga aroostay wiil aanan qarash ku bixin ama gabar aan qarash ku bixin runaantii inta noogu soo jawaab waxaa u malaysaa in aroosyadii ee sanadihii ugu dambeysay ee qaali ay noqdeen haddaba ka waran haddii lagu yidhaahdo ku aroos qof aanan shilin haysanin oo aad weliba reerkaaga weydiisatay caawinaad inay ku caawiyaan ay guriga kula dhigaan oo alaabtay wax kaa siiyaan oo alaabtay soo iibiyaan haddii ay gabar saasi jirto yaa inta commentiga hanoo soo gasho inantu hadday nin wanaagsan hesho lacag waxba uma taraysa iyo faanfaan inay nin wanaagsan heshaa unbaa muhiima marka hadday nin wanaagsan hesho meherka ha u fududayso dahabka iyo filinjarka iyo waxyaabaha ay ku xidhayso ninka ha ka dayso nin wanaagsan hadday hesho waxaanoo si fudud ugu keenaaba hadhow ay la kulmi doonto waxaa qayb ka ah odayaasha iyo madaxda dhaqanka ee doonaya yarad badan iyo gabaati badan iyaguna inay daayarta ka daayaan weeyo kaaladii la soo celiyo oo halkii lacag badan laga urursan lahaa inaan kaa guursanayaa in isaga wax lagu taro tol iyo xididba waxaa qayb ka ah sodohda oo iyaduna haddii aan wax loo dhiibin oo fujaannadii aanay soo samaynin aad moodda inay inanteediiba ceeboobayso waa sida ay maaragtay xaawalaydu iska dhaadhiciyeen iyo hooyooyinka waaweyn markaa fujaan halkan kala noocnooc ahoo wax ku jira oo aan laba intifaacsanayn kanaa sabiiba kanaa fulaana dadka qaar baaba dahab ku soo gurayba fujaannada waxaagee la geynaya dahab ammaanaa bay ku soo gureen oo hadhowna marka la furo dadkii lahaa loo kala celin doono waa ay arkaay waxalla waxaa soo dhammi waxa weeyaan aayaheenni iyo mustaqbalkeenni oo aynu ku ciyaarayno haddaba sidoo kale waxaa la qiyaasaa in waddamada caalamka qaar ka mid ah ay dumarku ayagu raggu guursadaan oo ay qarash ka bixiyaan oo ay lacagta ka bixiyaan oo reerahooda ay dhigaan guurka haddaba taas sideed u aragtaa haddana halkan ka daawo video waa India waxaa ka jirta in ay gabadha reerkooda ay dhisaan ay arooska dhigaan ay xafladaha dhigaan ayagana waa kanaya balnala daawo My parents have asked 4 crores dowry from my parents. Shall we discuss this later? We need to take a Feras. A Feras can wait. You're okay with this? You agreed to this? The money's for us only, Nabri. How does it matter? It matters because I don't know who the fuck you are. Nabri, listen. It's you and me. We can sort this out. Trust me. There will be no Feras. I'm not going to pay anyone to marry me. haddaba sidaad la socotaanba bariya waxaan ka soo hadlaynay guurka markaan ka hadalnana waxa aan muhiimadeeda ay tahay waa in aan dhalinyarada aan weli guursanin ee talada raba inaan usoo bandhigno talada wanaagsan mar walba talo wanaagsan meehee walaal talamaan xumaan oo dhan naga ilaaliya insha Allah saysan dhalinyarada oga cararin guurka haddaba inta kala soco mar walba barnaamijyada wararka iyo wax walba oo muhiimadda shacabka ay tahay inaan annaga la wadaagno kusoo dhawaada mar walba